وزير ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaaleynta Jubbaland mudane Ibrahim Maxamed Qooshow ayaa daafuray wajiga saddexaad ee mashruuca ayaxa. Mashruucan oo horey looga fulinayay gobolka Gado ayaa hadda laga daafuray degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ay fulinayso hay'adda WRS ayaa waxa qayb ka ah hay'adda WFP iyo dowlad goboleedka Jubbaland. munaasabadan daafurka mashruucan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka magaalada Dobley iyo qaybaha bulshada magaalada. mashruucan ayaa looga faa'iideynayaa 17,731 qoys oo ah dadku dhawaan ay xusaameeyay. mashruucan oo horey uga socday deegaanka laguna magacaabi jiray Baxnaano ayaa hadda wajiga saddexaad laga dhigay ayaxa. haddaba waa kana wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaaleynta Jubbaland mudane Ibrahim Maxamed Qooshow oo si kooban uga warbixinaya mashruucan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay. magaalada Dobley oo reer guddoomiyaha degmada ilaamaha amniga iyo dhammaan inta la shaqeyso intaas kadib wasaaradda shaqada shaqaalaha meesha maanta waxa waaye in la daafuro mashruuc ayaxa oo horey ugu socday gobolka Gedo 6 bilood ka hor. mashruucan waxaa hadda Dobley ka fulin doona area Afmadow WRS waxaana mashruucan iska kaashanaya dowladda iyo WFP iyo hay'adaha kala shaqeeya WRS. mashruucan guud ahaan wuxuu ka koobnaa 17,731 waxaa laga fulinayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Gedo iyo magaalada Dobley oo degmada Afmadow. mashruucani waxa waaye mashruuc hore u socday 2020 ayaa la siixay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda gobolka Jubbaland ay siixday xilligii uu soo gaaray. waxaana loogu talagalay in dadka masaakiinta ama dadka ka faa'iidaystaan dadka dhibaataysan uu saameeyay ayaxa. horey wuxuu ahaa barnaamijka Baxnaano وأصل بحنانة مركز العيد يعني بحنان ويالي وبعد هذا معيح وضع مسامي يوم حليدا كي هلا جالسين هذا مرتي أحوال عيح مسامي مركز مشروع عص يعني حرب اللي يدفون ديانك يدفون مركز مهم ده أمر من مركز إنها بدنا خاك sidoo kale wasiirka ayaa kormeeray goobaha hay'adda WRS ee bulshada ugu shaqeynayso Abdul Hayy Haashi Jubbaland TV Dobley.